ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاق نسعى إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواح. بسم الله، الحمد لله بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ولقد طبتم وطاب مشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. إلهي تبارك وتعالى هيدا بركي وكتابك اللي تحرينوها يدروس نوسو سعوتي كتابك اللي مقع بحي المبادئ الفقهية على مذهب إمام الشافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وانا درسي لحاد 10 لحاد يمكن كقاعدونا شاشدة أيضا أعلى كلا سعوتين كتابك أنا أخريه oo aad si toos ah adinkuna indhihiina ay u qabanayaan shaashada TV-ga Kalsa TV. waxaan haatan bilaabi doonaa meeshii uu darsiga inoo marayay si adinkana aad u aragtaan biidnillaahi tabaaraka wa tacaala. waxaynu ka qaadi doonaa insha Allah tabaaraka wa tacaala cadad ragcaat al-witr. kam cadad waa imsa waana ka hadalka u dambeeyay ahayn qofka markuu cishaha seexanayo salaada cisha kadib markuu saxan witriyo marka witrka meeqa ragcaad la tukanaya waxaa la tukan karaa 11 ragcatan 12 ragcadood. waqtaha waqtigeedana waxa weeyaan bacda salaat al-isha salaad isha kadib ila طلوع الشمس ila qorraxdu ka soo baxayso. kam awqaat allati tahrum fiha salat waqtiyada salaad xaaraan noqonaysa in sunno salaad bal tukado waa waqtiyada tahrum waxay noqonaysaa as-salaatu fi 5 awqaatin shan waqtiyaalo ay noqonaysaa xaraam in la tukado. ko عند طلوع الشمس markay qorraxda soo baxayso xataa intii tartafic korka ahda qadra rumhin ilaa wax la eg waran oo kale ay ka noqonayso intaas lama tukan karo. iyo inda istiwaa'i iyo markay qorraxda dhaxbartama cirka dhaxbartama istaagantoo kale fi ghayri yawm al-jum'a marka laga yahay maalinka jimcaha xataa tazula ash-shams ilaa qorraxdu ka zuusho. saas ayaduna shaafiiciyadu saasay soo guuriyeen waxa weeyaan ayaduna ma banaano. waa tahay qodobka saddexaadna cinda isfiraar ash-shamsi xataa taqruba iyo markay qorraxdu boorowdo ilaa ay ka dhacayso markay qorraxdu sii dhacayso kale markaas uu booroobaysa waqtigaasna waqtiyada laga fiican yahay in la tukado weeyaan. iyo bacda salaatu subax salaad subax kadib in sunno la tukado ayaduna ama salaada la tukado ma banaana. sunno iyo salaado ama salaad waajib noqotaya qof la kadii tahay salaad qallaa lagu leeyahay waa tukanaysa waqtigaas kuma xirno. sunnooyinkan waa la kala qaado waxay ku leeyihiin haddii ay tahay sunno sida tii salaadii subax ka horeysay iyo sunno markaas muakado oo masaajidka in kala soo galayo kale wax noocaas oo kale culimadu qaar badan baa qaba inay banaan tahay qabaan bacda salaada subax kadib laan huna kuwaas waxa la istithnaa waa laga soo reebay xataa tasruqa ilaa ay ka iftiinto ash-shams qorraxda. qodobka shanaad ee ugu dambeeyo awqaat allati tahrum fiha salaad waxa weey bacda salaat al-asr salaada asr kadib wax sunno ay salaadi ma jirto waqtigaas lama tukan karo weeyaan xataa intii taqruba ay ka dhacdo ash-shamsu qorraxda. waa tahay halka waxay nooga bilaabanay qodob kale aad iyo aad muhiim ah su'aal uu ku bilaabay kam arkaanu as-salah arkaanta salaada waxay leedahay shuruud iyo arkaan. shuruudu waxa weeye waa intaan salaada la galin salaada markii la gal arkaan baa leeyahay gudaha salaada waxyaalaha ka dhaco waxyaalahan gudaha salaada ka dhacana ka kaafin mayso waxa la yiraahdaa sujuud as-sahw inaad markaad ama ilowkaaga aad salaadii adoo ragca inaad ka tagtay ama hilmaanka aad kaga tagtaya ama ka siima aad kaga tagtay sujuud sahwi ma ka kaafinayso oo ka gudamayso waa inaad ragcada soo celisid. marka 14 rukni waana muhiim qofka muslimka ay salaada ilaahay tabaaraka wa tacaala u tukanayo inuu barto ay u yaqaano. kitaabka qaybta ku soo qaadana أركانها 14 و14 ركنا الركن الأول متكون القيام القادر في الفرض قفك كرايو إنه قيام أم استاك تكده
وإنه استهكت كذا قضب كود مهم والنية إنه يستوى والوليد إنه قلبك عن نري قضب استحادنا وحاوية وتكبيرة الإحرام حرشة الله أكبر وقف كل يوم أيضا والركني وقف الصلاة إسكمل لك رسولنا تكبيرة الإحرام لا إيمان صفة عم أصلا شرحني قراءة الفاتحة فاتحة هذا إنه قفك أخريه الركوع ركوع ذي ليم هذا الطمأنينة أما الطمأنينة في الركوع والاعتدال والسجود والجلوس إنه قفك حصله ركوع ذي اعتدالك السجود مركي والسجود مارتي يفديه إنه حصل له بهاية قضبك تضبط الاعتدال إنه قفك كو هكذا أيضا مركو صو استرجوك سبع الله وليه اعتدال كاس وليه هذا إنه كو هكذا ويا أصلا أيضا هو ركني واي هكذا هو ركني أما وليه ماذا اعتدالك الثامن قضبك سدلال السجود وإنه سجوده ليه أيضا هو ركن من أركان الصلاة التاسع قضبك الجلوس بين السجدتين لماذا السجود كدب إلا فديس الحدود الجلوس إلا فديس وقضبك التبرعاد للتشهد الأخير يتحيث أوضا بيه قضبك التبرعاد هو التشهد الأخير يتحيث والآخر قضبك الله بيتبرعاد الصلاة على النبي في التشهد الأخير النبي محمد عليه الصلاة والسلام يتحيث أوضا بيه لقو صلي صلوات ربي وسلامه عليه قضبك صدحية تبرعاد التسليمة الأولى السلام عليكم تهراء أيضا هو ركن من أركان الصلاة لقد تيكره كامنا كافريز إلى سجود لإماديد وإناد وحيوردان هدي لقد تقو وحاول وقتروا قضبك إنه قدام بي أفر طبعا كان ركنية هورنا وسوقاتين وحاول الترتيب في ترتيبه والنظام صنئيس الله إلى صلاة إيو هيئات كيدي ما سنن الصلاة قبل الدخول فيها إنتنا الصلاة اللي سنة يمكن يحلو بها محيطها الآذان والإقامة قفكينه آذانه إقامنا لماذا ما سنن الصلاة بعد الدخول فيها سنوينك صلاة marka la galo gudaheeda waxyaalaha sunanka waxay leeyihiin sunnooyin ay leeyihiin iyo hay'ad wax la yiraahdo marka wuxuu ku leeyahay qismaan waa labo abcaad wa hay'at abcaad waa bacd waa qaybo kamida qaybana qaybo iyo hay'ad bileeyihiin hay'adku qurxin marka kam abcaad waxyaalaha marka qaybaha salaada maxay tahay oo abcaad wax loo yaqaan abcaaduha 3 waa 3 wiiri maxay tahay التشهد الأول التحيات كوبات وحيالها سنوينك الصلاة الأحياء سنة واحدة وصوى شرحني سنة إيه مباح إيه مكروه إيه وحص أنا وصوقا الحمد لله التشهد الأول التحيات كوبات وحيالها سنوينك الثاني قول الصلاة على النبي في التشهد الأول النبي قال له وصل ليه التحيات كهراء لكن سيدة راجحة التحيات كاس ما لها صلى النبي عليه الصلاة والسلام بل وحن نقول يا بيتك صحدا التشهد الأخير أتحياتك قدام بيو أيو مارت نقول بل واجب نقول يابا قضوا كذا وحويا القنوت في الصبح وفي وتر النصف الأخير من شهر رمضان إلا قنوضه صلاة الصبح إيوه يعني حبرتبها بشهر رمضان قنوت كصلاة الصبح ولا الحديث بكسونا ذي ولو حديث كاس وضعيف فيها وضعيف من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه مرك حديث كاس نحط الماما يا النبي قال إنه قنوت جري حتى فارغ الدنيا إلا ودون كبا كان قاج قنوت جري لهذا لك حديث كاس وحاوية وضعيف واضح كم هيئات الصلاة وهي لها صلاة تقول هيئات كذا يقولها ما هي 15 وشرع طبعا الأول حاول رفع اليدين إن قامها كر لو قاضي بحذاء المنكبين أيضا لو أدني قربها قامها كر لو قاضي قربها راس لو أدي ولا سهر جديد عند تكبيرة الإحرام مركي وحيلا صلاة قرحته إذا كانت هاي مركا لحيرني الله أكبر عليه إن قربها لو أديه قامها أما دقها أيها كوبنان عند الركوع مركي الركوع على راسه قامها كر الله قاضي وعند الاعتدال مركي سمع الله لله كر الله صعد قامها وعند القيام من التشهد مركي أتحياتك الأول اتحاد كوبات لقصوا كعيب قضبك اللبات وضع اليد اليمنى فوق اليسرى تحت الصدر وفوق السرة إن قعنت ملك لقوه هوصل مريمد بديحنا لقصوا كرمانيو تحت الصدر حبتك قيبتها وحوق حبتك لقصوا لقوه لنا صار وفوق سرتي حندورتا أما حدونت قبسوا يقانو marka gacmaha meesha laga eedo wax dhibo ma lahan xabadka la saari kara ilaa calooshan qiimo meel bay ku banaayin waxa adigu hada
وحياة صلاة قرحية وصلاة كبر ميس قف كاسدو بيش قعد صاربا واتهي قضبك صدحات دعاء الافتتاح إنه قف كلمة فرشدي مدى أفراد التعوذ إنه قفكي شطاك اسكناره قضبك شرات التأمين آمين تلي ماذا إمامك آمين تأمسك تيس أولي ماذا قضبك اللي حدول ريال إلهي ذن بركيه وهو قراءة سورة بعد الفاتحة في ركعة الأولى والثانية لغير المأموم إنه قفك ولا ليال وأخريه سورة فاتحة كدب رعادة كوبات يمد لوادبا لغير المأموم هدوس الإمام لجرك إذا أسجري مركا قفكو وحيالا صادق وحيا كفتان دو صلاة تكنيو فاتحة مركا إنه وحكو داره ويسكفي عنده لكن هدوس كو دارين وفاتحة كلي كو أكيستو صلاة الحمد لله رب وفي عنها وانا هي آد وصلاة وحيالا يكون بران معه قضبك تضبات الجهر في موضعه والإسرار في موضعه إن مركز صلاة جهر سيدا المغرب كي يعيشها وكلا يفجر وكلا إنه كر قاضه صلاة هاص لو دقينا وهاص دقه قضبك السجدات التكبير عند رفع والخفض مركي محان هاي تكبيرته الله أكبر كر لو قاضه يمكن لا دقي وحصلا أيضا هو قضبك الزيادوي وتمرك الله ومر أي مركز طبعا إن تكبيرت أين الله أكبر لهذا قضب كالسجال دور اليال قولوا إنه قفك إلى سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد في الاعتدال إنه هذا أيضا وحيلا صلاة قرحية قضب كطبنات التسبيح في الركوع والسجود ثلاثة سبحان ربي العظيم وكلا تضح جاء الركوع الوضح إيو مركي محالة سجوسيها أيضا سبحان ربي الأعلى أيضا وحيلا هي آد كصلاة قرحية ويان قضبك كوبي تبنات وضع اليد على الفخذين إن قامها لصاره فرها ويان مع بسط اليسرى أيضا لفظنا قعنت بدح وحصارسها بوذة وصارسها قعنت هذا بدح لفظنا وقبض اليمنى إلا المصبحة مدي مدقنا وعلى صلاة فريق وصلاة صلاة إلا وحا لدينا يفرت التشهد مركزات وقعمها بوذة وصارسها وصفدين مدة كلنا وفي لو الله يسأل إلا مدة تحتك تشهدك الأخير والحمد لله والتاس آد بلو فاسية مركا انت أصبح إيوه محانا لهذا مركا قفك إنه ساعة سمايو عيال لو بحاني مركا قضبك كلام أسي يقول بيهاي وقضبك لابية طبنات الافتراش في جميع الجلسات إنه قفك افتراش او سلك مارت لوقت لابو لوقت سو لابو وفراش كدت لو جدال اهان لوقت نقطه كدبنا او بريده صحراء الثالث عشر قضبك صدحيتونات التسليمة الثانية إن السلام عليكم تكوبا دوحاني واي ركني واي لكن تلماده هي قوي وكاسا قضبك التورك في الجلسة التورك في الجلسة الأخيرة قفك إنه سلك روكا ديغو وبريد روكا ديغو كلا او كبخيو فراشكي لوقت ساريد ساسا فيعان وليبا وا فديغا او دمبيو hadii uu meeshiisan ahayn cariiri hadii uu sayidka cariir u yahay dadka isku lugaha salka u dhigtid macquul ku noqon mayso ayadoo in la ogaado arintaas lagu balaarugo walaalahay qodobka 15 ugu dambeeyo hay'adka maxaa la yiraahdaa salaada waxa weeyaan نية الخروج من الصلاة إن الصلاة كبحثنات أيضا نية التي مادت إن هذا النية أتصوح هذه الصلاة التي مادت هل كأسلقوا تلمامية متى يجهر المصلي ومتى يسر قرمي كرء قاضية صلاة قرآن كي وحو آخرني قرآن كي وعلى قراءة بالغوضة قرمو سريسانا يا يهوص يجهر في ركعة الأولى والثانية من صلاة الصبح والمغرب والعشاء صلاة الصبح ركعة كوبات يمد اللبعض با كرب أو قاضانية المغرب كان صوك له ركعة كوبات ركعة اللبعض أيقنا كرب أو قاضي عشاء با لكن كل وضع الضم ولا عبوسي لك عشاء مغرب كي محانا يفجر صلاة فجر صلاة الصبح أيكو مغرب كنا حركة عليها ولا عموسي فجر كنا ما بلحبا لكن عشاء لبضها ركور لو قاضي لبضها كنا ولا عموسي بإذن الله تبارك وتعالى ويسر حال سريسنا في جميع صلاة الظهر والعصر وفي ركعة الثالثة من صلاة المغرب وفي الثالثة والرابعة من صلاة العشاء وأن صوت المعنى صلاة الظهر وردن أفرت ركعة أيضا ولا أمص أي عصر كبا
ragcada ugu dambeysay maqribkana waa la aamusayaa iyo labada ragco kale ee salaada cisha marka kuwaas waxaan taqaanaan laakiin kitaab baad ka baranaysaan oo saasaan u sharaxayna insha Allah tabaaraka wa tacaala ma mubdilaatu salaat horta maxaa salaada buriyo ma mubdilaatu salaat mubdilaatu afar arrin baa salaada buriyo qofka inta ku jiro alkalaamu camdan inuu salaad qof ku jiro iska hadlo halow telefoon iska qabto iska sheekeeyo ka leexda wadada wasaayka soo gala waxa salaadu hadalka waa ku burtaa salaadu qodobka labaad waxa weeyaan 3 حركات متواليات sida shaaficida qof 3 xarakaat oo qofka 3 dhaqdhaqaaq oo la yimaado ayadu qofkii iska takardhamanayo iska ciyaarayo hadii noocaas tahay salaadii waa ka burtaa qofkii ay ka buraysaa walaalayaal waana sida fiican qofka hadii ay wax ku soo dariyaan oo meel u xoqonayo ama wax degdeg oo maartay ishii ay wax u dhacaan ayadu xarakaadkaas dhib malaha laakiin waxa la leeyahay inaad iska takardhabato iska ciyaarto oo salaad ku jiro إله بدر تعالى تبارك وتعالى قضبك صدحات وحاويان الأكل والشرب أيضا دوتك وتا إنه قفك أصلا صلاة كجر إنه بي إسكعب إسكا بريسي باسكو عن صلاة كجر تأصلا أيضنا شقين ميزو صلاة أسواء وكديس وبرتوي قضبك أيضا بأي صلاة وحيالها بريو وترك إلا كتب ركن من أركانها أو فوات شرط من شروطها إنه قفك كتب ركني أما شروطي أين سوى الشعقني أيضنا waxay salaadii way ku burtaa weeyaan way ku burtaa ma xukumku wuxuu yahay man taraka qofkii ka taga rukun min arkaan salaati salaada arkaanteeda haduu qof ka tago sax asoo ilowsan ka war haduu ka tago xukunkeeda wuxuu noqonayaa yaati bihi ida tadakarahu hadii uu rukniga soo xasuusto uu la imaanaya wayasjudu lisahwi sujuud sahwi markaas uu keenaya ruknigaas uu soo celin kadib uu sujuud sahwi la imaanaya sujuud sahwi hal yada أتحيت قدام كامل مركز أنت سلام نقصن يا سجود لي هذا لو سجود وجهي واضح لك كل دقيقة يا الله إيمان سبيل الله تبارك وتعالى وتما حكمكم هو من ترك قفي كتك سنة السهو سنة عادي أو سهو ويلوم وإيمانية لا يأتي بها سجى سوء الماء سنة دي وأصور شغله وحياله السنة جلو يوحياله ركنية ركنية شروط أيكو وعلى سوء كدي من السجود سهو على إيمانية لكن سننك hadii uu qofka ka tago sunanka hadii uu qofka iskaga tago caadi tahay asagii waxbana muu soo celinayo weeyaan qofka la imaan maayo maxaan dhahay sunanka la imaan maayo laakiin kale uu la imaanayo uu soo celinaya arintaasna waa muhiim jiddan walaalayaal soo celin maayo biidnillaahi tabaaraka wa tacaala waa tahay laa ya'ti biha bal yasjudu lisahwi tusaalahaan qofka wuxuu ka tagaydaan tusaale in siiyo التحيات كدحه ما أها ركني ما أها وقفك ومركو حسمانا يا صلاة اسكا وضانا يا لك هدو دي سجود سهوي أيو لا إيمانا يا مركو صلاة لما يسو سجود سهوي أيو كوكا ويا أكو هنا يا ما حكم وحويا من ترك قفك تغا هيئة وحي قرع لو قرع هنا صلاة دي هدو كتغا هيئة وسوقات وحي هيئة اللي يراهدو لا يأتي بها أصلا سوء المايو ولا يسجد للسهوي sujuud sahwina keeni maayo sida hadda sujuud sahwi oranima sunnadii asaga u keeni maayo hore baa uga soconaya ma xukunku muxuu yahay man ajaza qofkii ka caajisay muxuu ka caajisay aan alqiyaam fi salaati al-mafruuda salaadii waajibkeed buu istaag ku tukado ka caajis yusalli wuxuu ku tukanaya qofkaasi wuxuu ku tukanayaa maxaa la dhahaa jaalisan asagoo fadhiyo وإذا عجز عن الجلوس هديو كعجز كري وايو محاني راهداي فردقي صلى وحوتكنيا مضجعا جيف كتكنيا وإن عجز هديو كعجز كري وايو عن الضجاع إنه جيف كتكدو صلى وحوتكنيا مستلقي أصلا قدات وجيف جاجو أما النفل أما السنة مياه نافلة فيجوز وحاوبنان أن يسليه إنه كنت قد القادر على القيام قفكي كرا إنه استاكو كنايا على القيام كنت قد كرا دوكرنا هدوسا كرينو أود له إنه كنت كنايا جالسا أصغي أو فديو أو مضجعا أما صغو جيغا يا ما قدات أجيفو أيو محان هذا كنت كنايا صلاة الجماعة صلاة جماعة ما حكم صلاة الجماعة صلاة الجماعة حكم كذا محويها وفرض كفاية صلاة جماعة حكم كذا محويها الجماعة اللي قلت كذا وفرض كفاية أي ليهن شافعي على الرجال المقيمين نتك الدقان فرض كفاية كنت هاي وأقلها أو إيراننا
imaamun wa ma'muumu inay maxaan dhahaye imaam iyo ma'muum la helo ugu yar. ficilna saas waay salaada qof hadduu gurigiis ku tukado waxa uu ku tukan karaa, laakiin waxaa fadli badan inuu ku tukado masaajidka ilaahay tabaaraka wa tacaala. waxa uu leeyahay kam shuruuduha, marka sharciyada ay leedahay salaada jamaacada maxay tahay? wax walba shuruud bay leeyihiin walaalayaal. wuxuu alawal an yanwiya alma'muumu inuu qofka imaamka ah niyeysto aliqtidaa'u bilimaami, inuu imaamkii ku daba tukanayo waa inuu niyeysto. athaani qodobka labaad an yacrifa inuu garanayo alma'muumu qofka ku daba xiranayo imaamku inuu garanayo intiqaalaat alimaami gadgadoonka uu iyo xarakaadka imaamka inuu mar rukuucayo mar inuu la jaan qaadi karo la socdo walow biwaase haba loo dhaxeeye. athaalithu qodobka saddexaad allaa yataqadama inuusan ka hormarin alma'muumu qofkii ku daba xiranaya imaamkii ma'muumka ahaa cala alimaami imaamkii inuusan ka hormarin fil makaani meesha markay wada istaagayaan saman yihiin, laakiin waa haddii laba qof yihiin imaamkii inuu ka hormarin. maxaa kaloo kuu soo haray qofkii imaamkii ku daba tukanaya imaamkaana inuu imaamkiina dambeeya isagana hormar, ayaduna waxa weeye waa shuruudda loo baahan yahay in la ilaaliyo. araabicu qodobka afaraad nacam qodobka afaraad waxa weeye an yaqiba minhu inuu u soo dhowaado fii kayri lmasjid. masaajidka lagu jiro laba qof yihiin waa inay sintaan baa fiican, xataa haddii masaajidka lagu jiro haddii masaajidka lagu jiro inay sintaan way laba qof markay yihiin. hadday ka badan yihiin dib u degayaa oo gadalba iyaro durqayaan. alkhaamisu qodobka shanaad allaa yaxuula baynahumaa xaa'ilun. qodobkan dood baa ka taagano waxaa hadda xaramka oo kale horta macnihiis muxuu yahay qodobkan aan sheega dooda ka taagantaha waxaa weeyaan inuusan dhexdooda gelin derbi ama wax kala taydo oo imaamkii imaamuum kala qariyo, imaamkii iyo ma'muumkii wax kala qaranaya hadday jiraan ayaduna waa shuruudahaas waa inaysan jirin waay. marka laakiin hadda caalamka hormarayo masaajid ba waxaa laga inuu laba dabaq yahay, imaamkii arki maysa lakin waxa kusoo gaaranaya waasido waxbaa kusoo gaarsiinayo oo microfonkii iyo waxaasa kusoo gaarsiinayo. haddii marka microfonkaasi waxaas ay jiraan oo imaamkii aad maqlaysid allahu akbartiisii wax dhibah kuma jabo. laakiin shaaficiyadu haddii baa kala qarsoomay derbi u kala qariyey waxay ku leeyihiin waa diidan yihiin wey. allaa yaxuula waa inaysan dhexgelin baynahuma dhexdooda xaa'ilun wax kala qariyey. asaadisu qodobka lixaad an yutaabica alma'muumu imaamahu inuu qofkii raaco imaamkiisi. ma'muumkii waa inuu imaamkiisii raaco, hadduu rukuuco hadduu samca allahu kadabira oo imaamkii uu waxa uu sameeyaba waana sida nabigeena ka sugnaatay calayhi salaatu wasalaam oo de imaamka in lagu dabadayda wey. asaabicu qodobka ugu dambeeyo ee salaatuljamaaca shuruudaheedii ahaa allaa yaqtadii inuusan ku daba xiran biman talzamuhu icaada qof salaad soo qaleynayo inuusan ku xiran. saasay shaaficiyadu qabaan. ما شاء الله تبارك الله كاسا هو قيسنا إن شاء الله تبارك وتعالى درسنا اللحاد وإنه درس كله يبكولا كله حسنه بإذن الله تبارك وتعالى. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وحنبهد عنا إلهي تبارك وتعالى سوكر وحنبهد عنا ولا عليه كقيب قاتي سيدنا قروح لبضان أدو داوان السين دروستان PDF أهان يمو قالهان ستوصل إلى قوسو تبني إلى هذا بركايو لمانتين وحين الله هاي جزاكم الله خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.